بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan nabada wadayaal ku soo dhawaada wararka wadajir news qodobada ugu waaweyn ee aan faahfaahin waxa kamid ah xildhibaano ka kooban labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo si wadajir ah farmaajo ugu tagay gurigiisa waxaana ka dalbadeen cafis iyo xildhibaano farmaajo ku yiri inuusan xilligan jirin qof asaga kaga wanaagsan xilka madaxweynaha xasan sheekh maxamuud oo Fahad Yaasin Xaaji Daahir ka dalbaday inuu xilka agaasimaha nisa u magacaabo iyo dagaal culus oo ka dhax qaraxay Mahad Salaad iyo Xasan Sheekh Maxamuud balweynta saacad ee habar gidir oo 48 saac u qabatay qoorqoor iyo Farxaan Qaroole iyo Saadiq Joon oo ku wajahan gaalkacyo xiisad culus oo halkaas ka jirta ayaan inkaga warbixi doonaa qodobadaas ayaan faahfaahin doonaa hadii laga helo eebaweyne waa 22 bisha September 2022 inaga qayb qaata daawadayaal faafinta warkan adoo ku sheergaranaya saaxiibada iyo baraha bulshada waadna ku maasan tahay daawada hadii aad aragtida ugu reebtay qaybta commentiga ee hoose waa hagaag isku soo laabasho wanaagsan oo xiiso leh xildhibaano ka kooban labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo hogaaminayso gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Saacidi Yaasin Xaaji Samatar ayaa booqasho ku tagay guriga uu degan yahay madaxweynaha hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xildhibaanadan oo isku jira labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka koobnay 39 xildhibaan waxaana si wadajir ah Farmaajo uga dalbadeen inuu iska cafiyo maadaama uusan xilliga jirin qof asaga kaga habboon xilka madaxweynaha isla markaana ay doorteen qof kale xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo hogaaminayso gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Saacidi Yaasin Xaaji Samatar ayaa markii koowaad madaxweynaha hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la wadaagay dhambaal salaana waxaana sidoo kale la wadaagay xaalka dalka kadib markuu baneeyay xilka madaxweynaha Soomaaliya Saacidi Yaasin Xaaji Samatar oo Farmaajo la wadaagtay inuu Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka qatar gelinayo xilligan ayaa ugu baaqday in la tashiyo habboon oo ka soo xaaladaha dalka iyo tilaabada ku habboon oo madaxweynuhu u qaadi karo mid ka mid ah xildhibaanada tagay guriga Farmaajo ee la kulmay ayaa sidoo kale wuxuu ka dalbaday inuu iska cafiyo maadaama ay had xilliga doorashada inuu asaga siiyo codkiisa balse uu ka doorbiday inuu lacag malaayiin dhaafsado codkiisa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee sida wadajirka ah cafiska ugu dalbaday madaxweynaha hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u ballan qaaday hadii nolosha alla nagu simo in 2026 doorashada dalka dhacaysa ay yihiin shakhsiga siinaya codkooda waadii kursiga xildhibaannimo ay ku soo laabtaan madaxweynaha hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii hore soo dhaweyn iyo kalgacal u sameeyay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo ku dhiiraday inay cafis ka dalbadaan Farmaajo ayaa la wadaagay in waxaan iska yihiin nasiib kursigaasina uu ku fadhiisanayo qofka alla u qoro wuxuu sidoo kale kula dardaarmay madaxweynaha hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xildhibaanada koobna labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya in ayaga kaalin wanaagsan ay ka qaataan in ay dalka ka samata bixiyaan xaaladaha adag oo dalka xilligan wajahayo waxaana sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka dalbaday xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee hogaaminayso Saacidi Yaasin Xaaji Samatar in ayagu ka soo horjeestaan tilaabo walba oo dalkan culays ku ah waxaana sidoo kale madaxweynaha hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalbaday inuu si dhow la socdo doono xaaladaha dalka isla markaana uu warbaahinta ka soo muuqan doono maalmaha ugu soo aadan bulshadana uu la wadaagayo wax walba oo dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ay ku kacdo dhanka kalena Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ka dalbaday inuu u magacaabo agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka kadib isfaham darro xoogan oo soo kala xagashay agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad iyo asaga Xasan Sheekh Maxamuud oo daraasiyay xaaladaha dalka iyo sida amnigu yahay ayaa waxa uu qutumi weysay inuu Mahad Maxamed Salaad uu sii hayo xilka agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka wuxuuna Farmaajo markuu si dheer iyo si dadban u eegay xubnaha ka kooban UPD uu ka waayay shakhsi ka soo bixi kara mas'uuliyadda culus wuxuuna Xasan Sheekh Maxamuud ugu dambeyn ku qasbanaaday inuu la xiriiro agaasimihi hore hay'adda nisa Fahad Yaasin Xaaji Daahir isla markaana uu ka dalbado inuusan jirin xilligan qof asaga kaga habboon xilka agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka wuxuuna sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda Fahad Yaasin Xaaji Daahir la wadaagay xaaladaha dalka iyo sida baasan amni darrada xilligan ugu soo kordhayso
gobolada dalka wuxuuna xasan sheekh maxamuud uu ka dhiidhiyay xaaladda dalka gaar ahaan magaalada muqdisho. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ka wawacday codsiga xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyn wuxuu go'aansaday agaasimihii hore hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir inuu xasan sheekh maxamuud uu kala shaqeynayo sida ugu habboon ee dalkan amnigiisa si wadajir ah xil iskaga saari karo, balse Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ka wacday inuu aqbalayo in loo magacaabo agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Lama oga sababta Fahad Yaasiin Xaaji Daahir xilligan uu diidan yahay inuu qabto xilka agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Warar hoose ay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Fahad Yaasiin ku qanciyay inuusan wax xil ah uusan ka qaban dowladda xasan sheekh maxamuud uu hogaamiyo. Waxa laga yaabaa in saacadahan ugu soo aadan xilka agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka uu waayo Mahad Maxamed Salaad. Xasan sheekh maxamuud oo maalmihii ugu dambeeyay la tiisho la sameeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ugu dambeyn isku waafaqeen in hadduu agaasimihii hore hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu aqbali waayo codsiga in xilkaasi u magacaabaan xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa oo ka mid ah xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, kaasoo marna soo noqday wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya. Waxaa sidoo kale laga yaabaa in xilkaasi loo magacaabo Saadiq John oo asana ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Labadan shaqsi ayaa loo saadaalinayaa in xilka agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka loo magacaabo, iyadana waxaa la ogeyn xilka loo magacaabi doono Mahad Maxamed Salaad oo ka soo bixi waayay shaqada adag ee hortaala hay'adda nabad sugidda iyo muqaabaraadka Soomaaliya. Waa hagaag daawadayaal, wararkeena kale waxaa ka mid ah sida ay sheegayaan wararka imaanaya magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug. Ku dhawaad hal toddobaad ayaa xal ku meel gaar laga gaaray tabashadii beesha reer Nimcaale oo ka mid ah bilweynta saacadii Habargidir oo 16 Sebtembar oo ku dhawaaqday in xiriirka u jareen maamulka uu hogaamiyo Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor. Tabashada beesha reer Nimcaale wuxuu ka dhashay in muddo toddobaad ah maalin uusan shaqeyn kastamka magaalada isla markaana aysan gawaarida adeegsan wadada kadib markii ciidamo xoogan ay ku soo jeeda beeshaasi ay la wareegeen baraha control ee laga soo galo magaalada Gaalkacyo. Kadib kulamo muddo socday, beesha waxay isla qaadatay in wadooyinka la furo lana fasaxo gawaarida, waxaana sidoo kale beesha muddo 48 saac siiyeen maamulka Qoorqoor inuu ka jawaabay eeda loo jeediyay isla markaana uu beesha la fariiso kuna dulka xuquuqda beesha oo sida reer naceebiga ah ugu dul fadhiyo. Beesha waxay sheegtay in la muraan tahay in dowladda Soomaaliya soo fargeliso isdiidooyinka ka dhaxalsan beesha Qoorqoor intuusan xalka faraha ka bixin, waxaana qaar ka mid ah odayaasha si adag u dul istaageen in haddii xal buuxa la waayo 48 saac gudahood ay tilaabeen hor leh ay beesha qaadi doonto. reer Nimcaale oo ka mid ah beelaha ugu tunka weyn beesha saacadii Habargidir waxay Qoorqoor ku eedeysay inuu duusiyay xuquuqdii ku lahayd dowladda maadaama uu ka soo jeedo madaxweynaha ugu horeeyay maamulkaasi Professor Maxamed Warsame Cali Kiimiko. Sidoo kale beesha reer Nimcaale waxay ka mid ahayd beelihii sida weyn u soo dhaweeyay kadib markuu Qoorqoor doorasho baba kursi ku helay 2020. Guud ahaan daawadayaal halkaas ku soo gabagabeynaa wararka Wadajir News.